si aad u dhisto jumlad waxaad u baahan tahay inaad hesho saddex shay. saddexdaas oo kala ah number 1 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن waxaan rabaa casharkan inaan kaga hadlo sida loo dhiso jumlad. Marka arday kamid ah ardayda ku xiran kanaalka Mubarak Z ayaa wuxuu soo weydiiyay ustaadii sidaan ku dhisi karaa jumlad. Marka casharkan aan rabaa inaan kaga hadlo si waadax ah ama si kooban haduu Ilaahay idmo. intaan casharka bilaabin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like gareyso marka hore, sidoo kale inaad kanaalka subscribe aad saarto. waxaan ku sii dhownahay 100k waad mahadsantihiin. marka casharkan si guud galina marka hore si aad u dhisto jumlad waxaad u baahan tahay inaad hesho saddex shay. saddexdaas oo kala ah number 1 waa inaad heshaa subject, second waa inaad heshaa verb, third waa inaad heshaa object. saddexdaas shay markaad hesho marka waxaad dhisi kartaa jumlad. intaas aan faahfaahin ka bixin waxa ka horeeya intaas oo dhan tusaale yar aan soo qaadanaya. markaad rabto inaad guri aad dhisto waxa laga rabaa marka toolski gurigaad aad ku dhisi lahayd waa inaad haysataa. Soomaan for example dhagaxaantii guriga lagu dhisi lahaa waa inaad haysataa. si lamid ah alwaaxyadii guriga lagu dhisi lahaa waa inaad haysataa. si lamid ah masaamirtii adi any toolski oo gurigaas loogu talagalay aqabka loogu talagalay waa inaad haysataa. si lamid ah marka jumlad si aad u dhisto waxaad u baahan tahay marka hore in aad taqaanid intaas oo base-ka aan soo sheegay in verb, subject and object iyo waliba words ereyo inaad taqaanid. yani adoo ereyadii Englishka aqoonin jumlad ma dhisi kartid. ilan you don't have any word eri dhan ma haysid. marka qof aan eri haynin meel aad wax ka bilaabaysa ma leh. marka saddexdaas aan soo sheegay ayaa basic u ah marka inaad jumlad aad dhisto. tusaale yar aan bixinay marka intaan tusaalaha gelin subjectiga aan sheegin muxuu yahay. subjectiga waxa waaye is the doer of the action. is the doer of the action. qofka falka sameeynaayo waa qofka ficilka ama falka sameeynaayo waa in la helaa kaas subject. waa in la helaa qofka ficilka sameeynaayo ama qofka falka sameeynaayo waa in la helaa. talabaad waxaan dhahnay waa in la helaa verb. verb maxaa waa verb is an action waa falki yani ama ficilki falki waa in la helaa. object waa in la helaa shaygi ama person ha noqdo ama place ha noqdo ama thing ha noqdo oo intaas waa in la helaa. tusaale marka I ate an apple. I ate an apple. aniga waxaan cunay tufaax. I maxaa waay marka I waa subject. waa subject qofkii ficilka sameynaayo waa adigii waay. ilaan qof haddii aan qof la helin dee qofkii wax sameynaya haddii la waayo maxaa la sameynaya wax ma yaala meesha sooma. subject waa in la helaa marka hore oo ah I ate waa verbkii wixii la sameynaya waa cunistii falkii waay. I ate an apple. aniga waxaan cunay tufaax. I waxaan dhahnay waa subjectii is a doer of the action qofkii falka sameynaya waa adigii subjectiga. okay aniga waay I ate marka waa verb ficilkii waa falkii la sameynaya waa cunistii. an apple waa tufaaxi waa objectiga shayga waxa la cunay waa shayga la cunay waay. I ate an apple. aniga waxaan cunay tufaax. marka waxaan dhahnay I waa subject is the doer of the action qofkii oo ficilka ama falka sameynaya waay. ate na maxaa waay waa cunistii waa verbkii falkii ama ficilkii. an apple na maxaa waay waa objectihii. waad fahamtay malena I ate an apple. tusaale kale tusaalaha labaad waxaa waaye she cooks a dinner. she cooks a dinner. ayadu waxay karisaa maxay karisaa a dinner casho. marka she waa subjectii waa ayadii she cooks a dinner. she cooks maxaa waa marka cooks waxa weeye waa verbkii. she waxaan dhahnay waa subjectii ayadii ficilkii sameynaysa waa she cooks a dinner. cooks marka waxaan dhahnay waa verb ficilkii ama falkii wixii la sameynaya waa karintii. she cooks. she waa ayadii waa subject. cooks waa karintii waa verb waa ficil ama fal wixii la sameynaya waa she cooks a dinner. dinner marka maxaa waaye waa
عشادي هو عشان مرك محاوى هو object اوكي شيء لكرينا هو مرك وعشادي she cooks at dinner وحكى لكم ده another example he plays football أساقي وحو عيارة كبدا عكتا he was subject وأساقي subject he was subject وأساقي يعني قفكي فعل سمينا it's the doer of the action قفكي فالك أم فعل سمينا هو he plays محمد و verb فالكي هو he plays أساقي وحو عيارة هي ما هو عيارة football he plays football كبدا عكتا football مرك محاوى object وحي العيارة هو يعني وحي اللي سمينا هو waxaan ahay jumlad markaad rabto inaad dhisto waxa basic u ah waa inaad heshaa 3 things saddex shay waa inaad heshaa oo kala ah number 1 first waxaan dhahnay waa inaad heshaa subject second waxaan dhahnay numberka labaad waa inaad heshaa verb an action falkii am ficilkii ta saddexaad waxaan dhahnay marka object waa inaad heshaa okay saddexdaas marka waxa basic u ah inaad jumlad aad dhisto لكن انت صوتن لكن waxaa ka horeysa waa inaad soo barataa ereyadii jumladaas aad ku dhisi lahayd waa inaad taqaanaa hadii aadan erey aadan xifdin aadan haynin aadan aqoonin then you can't build a sentence you can't and you wouldn't يعني ma dhisi kartid jumlad sababtoo ah ereygii jumlada lagu dhisi lama bahaysid yani guriga markaad dhisaysid وأنا هذا هيستا تونس كله ولسه لها هذا تونس كم أقرب كجوري ولسه هذا هيسن أنت واحد بالله بس مركا مين أضو واحد بالله بس مره مركا إن أنتس أيان ربينا كجاهل بحيو أرض يسوي دي سيدا لورد يسوي جملة 10 كان هالكاس أيوكو إجي هاي وينو 10 كحياة إيو سيدا إنه متقليو هاي لا إن مقالك الله يجلسه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والناس سنتين